wuxuu way fududaadaan ilaahay wuxuu ina siiyey subxaanahu wa tacaala maskaxdani aad bay u yartay jidhkeenna markaa lagu miisaamo bay yidhaahdaan waa 2.5% wasniga jidhka waxay yidhaahdaan waa 1330 garaam meelahaas bay ku tilmaamaan isku celcelintu kiilo iyo waxoogaa yar weeyaan maskaxda kugu jirta haweenkana bay yidhaahdaan raggu 40 garaam buu ka weeyay yani isku celcelinayana 40 garaam bay ka miisaan yaryihiin maskaxdaasi waxay isticmaashaa baa la yidhaahdaa jidhku waxaad oxygen neefsato oo dhan dib u jiido rubuc ka mida keligeed baa cunta allaaliya waxaad oxygen cabto rubuc ka mida maskaxdaasaa cabta maskaxdaa waxaa ku jira balaayiin unugyo ah maskaxda inugu jirta waxay yidhaahdaan 22 decimeter kama taqaanin centimeter maaha hoos uga sii kac decimeter 22 decimeter oo murabbac ah yani square ah 22 decimeter intuu leegiye somewhat meelahan buu leekaanaya waa wax aad u yar centimeter waa decimeter 22 decimeter oo square oo maskaxda bini aadamka ka mid bay yidhaahdaan waxa ay qaadi kartaa 20 milyan oo volume ama book inta ku qoran bay qaadi kartaa ma u malaynaysaa in awood intaa leeg aad wadato waa 22 decimeter in ka mid oo maskaxda sidata ka midi waxa ay qaadi kartaa bay leeyihiin 20 milyan oo mujallad oo mutawasit alxajmiya waxay ku tilmaamaan maalan أحد العلماء وبروفيسور كلا ماك روزيزن وكم من علماء مسكحة دراسيسة جامعة كاليفورنيا سنوات بدن بو دراسيني كذبوا حليه هي هديبوا يري مسكحة بني آدمك مالين كسته 10 معلومات في الثانية الله شيء قبوا لي سكند كسته 10 شيء هدي الله شيء قبوا لي سكت كوال برقصي هل كان من يتبع لحدا سكنه second kasta ama thaniye kasta oo kamida nolosha qofka hadii loo sheego buu leeyahay 10 macluumo loo sheego muddo 60 sanadood lagu wado habeen iyo maalintoona aan la kala joojin waxaad qiyaastaa second kasta 10 baa lagu sheegayaa shay 60 sanadood baana lagu wadayaa habeen iyo maalinbana waa lagu akhrinayaa wuxuu leeyahay macluumaadkaasi maskaxda bini aadamka ma buuxinayaan 1 على مليون من حجم العقل بوليه 1 على مليون من حجم العقل sida daraadeed bay waxay ku tilmaamaan insaanku maskaxda ku jirta awoodda alla siiyay maba isticmaalo bay leeyihiin 10% mooyaane boqolkiiba 10 ayuu ka isticmaalaa bay leeyihiin waxa lagu tilmaamaa qoladan computersku waxay ku xisaabtamaan gigahertz inuu processorku inta uu gigahertz uu per second jari karo waxay yiraahdaan maskaxda bini aadamku 400 milyan amaliye xisaab bay fi daqiiqa samayn kartaa waxay ku tilmaamaan maskaxda bini aadamku 30 bilyan macluuma ay fi thaniya mu'aalaja ku samayn kartaa yani computer dunida yalla saamu ma qabto waxa lagu tilmaamaa maskaxda bini aadamka iyo xidhiidhada unugyadaadu leeyihiin 600 mayl cable iyo wire-ka la dhigi karo ayaa u dhaxeeya bay leeyihiin iyada xidhiidhadeeda dhaakiraduna waxay ku xidhantahay bay leeyihiin inta xidhiidh ay samayso waxay ku tilmaamaan ahad ulama baa wuxuu leeyahay hadii buu yiri dunida waxa TV iyo television iyo radar iyo telegraph iyo telecommunication waxa wax lagu xidhiidhiyo dunida yaala hadii inta la yareeyo buu yiri aqli bini aadamka kale loo ekaysiiyo waxa soo dhan waxa iskaga badan buu leeyahay bini aadamka maskaxdiisa yani all telephone dunida yaala waxa allaaliye waxa switch dunida yaalo la isku daro maskaxda adiga ku saaran intay process gareyn kartaa ka badan sida daraadeed ayuu ahad ulama waxa uu ku tilmaamaya haddaynu isticmaali lahayn buu yiri xaasuub ama computer maskaxda uun bal ku dhow haddaynu isnaana sameeya waxa dhici lahayd buu inaynu sameeyno guri 10 dabaq ka kooban oo 770 mitir square ku yaala buu leeyahay
يعني بني آدم كيبلديسي وحي سادو isku xidhxidho computer aad tiraado maskaxdan yar adiga Ilaahay kugu rakibay shaqaday qabato wax u eeg wax qaban kara in la sameeyo waxay qaadan lahayd buu leeyahay xajmiga 770 mitir square oo 10 dabaq kor loo dhisay xajmi xaasuub leeg buu leeyahay barnaamijyadiisa imisa la sameyn karaa buu leeyahay taayada reeba yani programska ku shaqeyn lahaa inta lagu sameyn karayo iyada reeba waxa meeshii yaala wuxuu yahay طاقه inugu jirta inta ay